يوسف علي اللوري oo ka tirsan saraakiisha ugu sarsareysa ee sharikada isgaarsiinta casriga ah ee Telesom oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in sharikada Telesom ay wajahayso culays kaga imanayay dawladihii kala dambeeyay ee Soomaaliland gaar ahaan dawladii Axmed Maxamed Silaanyo iyo dawladda haatan jirta ee Muuse Biixi Cabdi waxaana uu sheegay sharikada in labadaasi dawladood ay ku hayeen dabar dhinaca ganacsiga ah oo culays ku keenay in shirkadu ay horumar samayso caqabadaha number 1 sida ay wada ogtihiin waxa ugu horeysay caqabadii aasaasidda shirkadan markii la aasaasayay marka shirkad la aasaasayo waa ogtihiin dhibaatada ay leedahay buuraha naloo diidi jiray meel aan bir ka taagnaa la diidi jiray magaalooyinka gudaheeda naloo diidi jiray waxaas oo dhan Telesom way ka soo gudubtay ee caqabada aasaasidda ee dhibta badnay waxaan kaloo kamid ah caqabadaha dawladihii kala dambeeyay ha u badnaato dawladihii kulmiye dawladda maanta joogta iyo dawladda ka horeysay labaduba waxay aad ay socodkeedii dib u dhigeen Telesom waxa iyadana Telesom caqabadka haysta ee ay dawladda imika jirta iyo tii horeba ay wali ku taagan yihiin korontadii shirkadda oo aan loo ogolayn inay xarkajiido ayadoo loo xiray ayadana Sunpower oo leeyay Sunpower uma wax jiidi karta cid kale waxa ma jiidi karto waxa ayadana kamid ah dhibaatooyinka shirkadda haysta shirkaddu markay sidaa aragtay waxay doonatay cable waxay soo xiratay cable-ka ay shirkaddu doonatay waxa loo diiday ogolaanshihii ay bariga ku keenilay dabata cable-kaasu wuxuu ku jiraa badda dhexdiisa ayuu ku jiraa waxaana loo diidan yahay in ay bariga soo dhigato waxa sharciga loo jabiyay oo dawladii Siraaye ay u jabisay Som Cable ayay sharciga u jabisay sharcigii dalka yaalay ee distoorka ah ee inaga wada dhaxeeyay ee qofna qof aan ugu sareynin ayaa loo jabiyay baarlamaankana waa la dhex dhigay baarlamaankuna gacantu u taagay sidaas buu sharcigaas uu noqday mid Telesom ku jiifsada Mr. Allore sidoo kale waxa uu sheegay in sharikada Telesom iyo adeegyadeeda kala duwan ay ku soo kordhiyeen Soomaaliland faa'iidooyin badan tan iyo markii shirkadu ay hana qaaday 1995 number 1 waxay abuurtay shaqaale fara badan ayay wadanka u abuurtay taasna waxaan maraynayaa cid maanta isku diidaysa inaanay jirin waxa isku xidhay gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland ayadoo oo waqtigii ka horeysay gobolada qaar sida warka la isku soo gaarsiiyaa aad iyo aad iskaga adkaa waxay sumcad weyn u soo jiiday dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Yuusuf Cali Allore sidoo kale waxa uu warbaahinta u sheegay in sharikada Telesom ay berri laga bilaabo joojinayso isticmaalka wixii ka yar $100 gaar ahaan adeegga saadka waxaana uu sheegay in sharikada Telesom ay waafaqsan tahay amarkii madaxweynaha iyo dawladdiisaba ee ku saabsanaa sicir bararka taasi haddii ay dajinayso sicir bararkana ay qaadanayaan waxa daba la joojiyay oo ay birita joogsanaya oo maanta ugu dambaysa wixii 0 ilaa 99 wixii $1 iyo ilaa 99 wixii 100 ka yar waxa weeyaan biri marka laga bilaabo waa la joojinaya arinta Telesom way la qaadatay dawladda haddii danta mujtamacu ay ku jirto oo danta bulshadu ay ku jirto oo sicir barar ay dejinayso kuwa helayaan ka mid nahay ugu dambeyntii Maxamed Yuusuf Cali Allore waxa uu sheegay sharikada Telesom inay qabto cabasho weyn oo ay u cabanayaan madaxweynaha Soomaaliland cabashadayaan u cabanayna awalan waxaan u cabanaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar labaad waxaan u cabanaynaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaan u cabanaynaa waxaanu leenahay mudane madaxweyne miyaanan ahayn muwaadiniin ma ajaanib baanu nahay xageenu ka nimid miyaanan muwaadiniin ahayn miyaanan maalgashi madaxweyne aanan wadanka gelin aad u fara badan oo maanta haddaanu meelo kale tagi layn dhalashooyin la siin la waxaan ku leenahay madaxweyne arinteeda hoos u eeg oo arintu waxay ahayd shilinka Soomaaliland ba kor loo qaadayaa haddii la gartay inay kor u qaadayso waxba kama qabno in laga joojiyo wixii laga joojiyo $. laakiin laanta
xaq baan u leenahay madaxweyne in aanu shilin Somaliland dadka fidinaya aanu ka mid noqono. Cabdishakuur Dayib Maxamed, Home Cable TV, Hargeysa.